madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayay ee safarka shaqo ugu maqnaa wadanka jabuuti maalmihii ugu dambeeyey ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga ee uu hogaaminayay ayaa waxaa madaarka caalamiga ee cigaal international airport ee caasimada somalilan hargeysa kusoo dhaweeyey xubno kamida golihiisa wasiirada, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, barasaabka gobolka murudijeex, maayirka caasimada hargeysa, mas-uuliyiin kale oo xukuumadda ka tirsan, waxaana uu qadar nasasho ah ku qaatay qolka VIP da madaarka. madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo safarkiisan muddooyinkii ugu dambeeyey ku joogay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee dalkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dalkaasi jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo muddadii halkaasi ay joogeen uu madaxweynuhu tilmaamay inay ka wada hadleen xidhiidhka qotada dheer ee u dhexeeya somalilan iyo jabuuti, isku socodka labada dal iyo sidoo kale arrimo kale oo la xidhiidha saaxiibtinimada dhow ee somalilan iyo jabuuti u dhexeeya. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti, wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ahna afhayeenka xukuumadda somalilan Salemaan Yuusuf Cali Koore uu ka sheegay xilli uu ku sugnaa magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti. socdaalada kala duwan ee madaxweynuhu ku tago dalkaasi jabuuti ayaa inta badan la sheegaa inay ku qotamaan xidhiidhka labada dal u dhexeeya dhanka ganacsiga iyo sidoo kale isku socodka labada dal. Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Ariel TV, Hargeysa.